tacsiyeynayna dadkii muslimiinta ahay oo mujrimiinta gurigooda inay ugu timid ay ku laaysay ayaan u tacsiyeynayna waxaan leenahay adduunyada dawlad waa loo soo ordaa maahna lagama ordo dawlad inay qabiil shaar u gelisay qabiil ay hubaysay oo ummad dhan degan dagaal ku qaaday waxa waaye waxaan leenahay dawlad ma ahan waxaan leenahay dawladda arintaas waxa ka qabato madaxweyne xasan sheekhow arintaas wax ka qabo berweyn ee ku soo laablaabanaysa had jeer waxaan leenahay intii dhimata Allah u naxariisto intii la calaab bogsiyo maanta waxaan leenahay arintaas ayada waa ka xunnahay waxaan leenahay waa cambaarina qolada ku duulaysa markastana waa cambaarina waxa sameeyo waa loo gubna nimanka shaatiga dawladda wato waxaan rabnaa madaxweynaha Israa'iil ka yahay gaal jecel waa farbadin yahay waan iska celinaa aabna waxay ku tahay madaxweynaha xasan sheekh ku tahay markaas in la yiraahdo gaashaan iyo waxa hablo ku duulay oo tuuto wato dawladda sharaf uma aha dadka ku soo duulay oo magaca dawladeed sheeganayo magaca dawladda in loo soo cararo xageeda loo cararo la rabo in laga cararo ma aha anagu odayaasha dhammaan beesha gaal jecel waxaan cambaaraynaynaa dhibka ka jira biroweyne oo dadka wax magaradka ah iyo haweenka iyo caruurta lagu xasuuqaayo ay ku xasuuqayso beeshaan aan walaalaha nahay wax ka deganaa biroweyne dadka laaysay kuna soo duulayso ninka la yiraahdo halaci gaashaan dhibka aad wadeen walaalayaalow naga joojiya anaga waxaan nahay beel gaal jecel dhulkaasaan leenahay wiligaa inaan joogi jirnay walaalayaalow naga jooga anaga idin rabno suuqaan meesha ku leenahay dadkayna degan dhulkaas ilaa maxaan ku sheegaa leega ilaa biroweyne ilaa dhulkaas oo dhan gaal jecel ilaa durduro gaal jecelaa iskale malahan habargidir malahan raaxan weyn malaha shan calaamad iyo hubeer hadaba hal arko gaal jecel degan walaalayaalow naga jooga dalkana maatada iyo ilmaha aad xasuuqaysiin naga jooga hadaad ka joogi waaysiin gaal jecel maanta wuxuu go'aan ku gaaray in la iska celiyo waxaan halkan ka tacsiinaynaa geeridii ku timiday walaalahayn shalay lagu duulay guryahoodii lagu laayay caruurtoodii imaatadoodii ganacsigoodii cagta la mariyay lala dhacay hub tiknika ah ilaahay aan aadiis quraanka ku sheegay axaadiistiisna ku cadeeyay dadkaas waa shahiid gurigooda lagu dilay waxaana ku dilay dad horor ah oo waxba aan ka galabsanin aan la lahayn oo horornimo ku sifaysan oo tuuladaas magaaladaas laamigaas ganacsiga ah oo galjecel degan yahay oo ku ah horor annagu waxaan u arkaynaa haddaan galjecelnahay horornimo cadan u arkaynaa xildhibaan maxamed caanoy oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya ee deegaan doorashadiisu ay tahay Hirshabelle ayaa ugu dambeyn halka ka hadlay cambaareenaya oo aad u cambaareenayaan kana tacsiinaya dhibaatadii shalay laga geystay oo ciidamada dawladda niman isku sheegaya shaar dawladeed wato laakiin shaar qabiil wato shaar dawladeed sheeganayo calanka Soomaaliya intay hoos galaano dad masaakiin ah oo magaaladoodii jooga soo weeraraan si magaaladaas ay u baabiyaan hore waxaan u sheegnay tiro ka jeer 5 jeer 6 jeer aan ka hadalnay taas waxay cadeynaysaa dad dulqaad badan inaan nahay in magaaladii Yaqbirweyne shal la tagay lagu soo dilay 10 ruux waxaanu aragnaa dad aarsanayo walaalayaalow waad aarsateen maalin hore waxaad disheen 12 ruux dhowr mar oo kale waxaad disheen dhowr ruux disheen nimanka ciidanka sheeganayo qabiilka ah walaalayaalow qabiilkiina waa la kulanay xil xumeena u geynay dhibkii ka dhacay Yaqbirweyne ka dhacay oo ceelka ka dhacay waa naga diideen qabiilkiina inay naga qaataan lacagtii xil xumeynkeed aan geynay Suuriyan geynay karfinaan geynay waa naga diideen waa markii ugu horeysay qabiil Soomaali inta wax loo geeyay diiday aan aragno laakiin bedelkeeda wiilashiina adin aarguday oo maalin kasta inta baxa suuq Yaqbirweyne tago oo dad soo dilay ilaahay baa naga sareeyo waxaan adin dhahnay xil xumeynaan bixinaynaa diyaan bixinaynaa karfinaan bixinaynaa
wax kastaan bixinaynaa annagoo aad la joogno aan maxkamadda ciidamada ka dacwoteen haddina waa baxdeen maxkamad shabaab ka dacwoteen haddina intaas markii wax idin tari waayeen wiilashiina inta meesha u dirteen waxaad tidhaahdeen adinka aarsada noo soo aaro 11 ruux maalin disheen 15 ruux disheen oo ilmo carruur ku jiraan suuq iyo aqbirweyna lagu kala cararay dad raashinkii karsadeen maqaayadii ka kala cararay dad dukaamankooda ka kala cararay dad xoolihii ay haayeen xirga haayeen markii xabadda dhacday ka kala cararay warniyo uma dul qaadan karna maalin kasta xabad uma dul qaadan karno maalin kasta xabad uma dul qaadan karno iyo dhibaato uma dul qaadan karno niyahow ehelaan nahay dad Soomaaliyeed nahay hawiyan islaan nahay waa isna qaana qaraabaan nahay maanta kadib qarimayno nimankaas qabiilka ah oo qabiilka noo dilaayo oo maalin kasta dadkeena noo dilaayo nimo gaal jecelow waxa idin dilaayo waa qabiil waa nimankii ceelka ka oo meesha joogay waaye maalintii ceelkana waa ogtihiin dagaalka iyaga bilaabay wiil socday intay dileenay qoriga ka qaateen kadib aameedkii laga soo qaadi waay gabdha noo soo diray dhaheen afxuma meesha laga gaaray dagaal dhacay dagaalkii ku dhinteen annaga waa ogolaanay dhibkii ogolaanay diya ogolaanay waa naga qaadan weyseen laakiin maalin walba inta baxdaan oo suuq iyo aqbir weyna tagtaan aad soo dishaan dad aad go'aan ku gaarteen nimayahow ilaahay kama aadan baqin dadnimana ma aadan ixtiraamin Soomaalnima aadan ixtiraamin gogol adin soo galnay mid kale adin galnay annaga gogol dhignay waa adin dhignay waa naga aqbal weyseen laakiin maalin kastaan ku dilaaya hadina waxaan leeyahay waxa waaye dawladda federaalka oo isbaar qaadaysa dawladda federaalka oo shabaab qaadaay dawladda federaalka oo maxay ahayd dad oo eedeysanayaal soo qabanayso inta eedeysanayaal ku soo qabateen inta eedeysanayaal ku disheen dad gaar ah bartilmaameed adin dad gaar qabiilka waxa rabtiin hal doolkooda dhalinyaradooda iyo suuqooda ina burburisin ujeedkiina ujeednaa neeyo dad isla degaanahay meel walba isla degaanahay aniga xildhibaan federaal ah dagaal kuma baaqay laakiin indhaha loo jeedo gaal jecelna waa arkaya adinkana waa idin jeedaa tolaanahay nimayahoon haddaad naga leexan weysiin saacadaas wixii ka dambeeya neeyo dagaalkan dagaal qabiil oo noqonaya qabiilna kama xoog badno inta dib adin gaar dib ka badan gaara anagana waana idin wada gaaray ee waxa noo roon maslaxa iyo walaalnimo noo roon nimeeyo waxa ay wadaan wiilasha soo dirsateen oo Axmed Gaashaan iyo halac oo baawurtii qabiilkii wato oo aan naxaynin oo naxariisanaynin oo every day inta baxad soo dilay wallahi uma dul qaadanayno saako waxaan joogan jooga arintaas gaal jecel xali muhurdin maanta dhan manasan qof shaqo tagay malaha kuleylka iyo dhibaatada ugu haysan meelaysan kartid farintaasaan direynaa haddaad naga xushmeyn weysin wallahi anagana idin xushmeyn meeyno waana mahadsantiin